Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay walaalahay aan aada u jeclahay adduunka meel kasta ka joogtiin. Marka hore waxaan aada iyo aada idinkugu mahadcelinayaa sida fiican ay la socotiin koomentidiina maasha allah ah, boqolkiiba boqol koomentiyaal beautiful ah, dhiirigelin, qalbiga wax kuu furaaya, aada og tahay inaad waqtigaa ku dhuminaynin dheedheel oo walaalaha aada runtii ay ku dhageysanayaan. Runtii aada iyo aada aan ugu faraxsanahay, aada iyo aada aanan u xiiseeyaa markaa arka koomentiyadiina. Jazaakum allah khayran. Dad aada u badan koomentiyaal ii soo qoray, wiilal iyo gabdhaba isugu jira, gabdho keliyaan ahayn. Waxaan leeyahay jazaakum allah khayran, ilaa khayr idin siiyo, aadaan ugu mahadsantihiin. Soo dhawaada. Dadka aan subscribe-ka noo ahayn subscribe noo sameeya. Dadka nagu cusub aada iyo aada idiin soo dhaweynayaa. Videogii hore gabadhan Nafise Hebel la dhaho Amaane Abuukar soo la baxday aan ka hadlayay. Runtii waxaan rabay inaan taas uga haro oo farax kala baxo, laakiin mar allaale markaan arko ama dad difaacaya ama dad u hiilinaya ama dad caytamaya oo intay koomentiyo kuu soo qoraan ku dhahaya. Koomentiga ugu dambeeyay wuxuu ahaa Safiya Maxamed miyaa ma aqaan gabar magaceeda, kolba waa magacyadan fake la iska soo samaysto youtube-ka, gmail-ka la iska soo samaysto, dhehayso arsaaqada ku raadsanaysaa dadkii kaa horreeyey maaragtay ba wax ku waayee iskaga har. Dumarka Soomaaliyeed bay wax u samaysaa. Marka ilaa hadda waxaan la yaabanahay oo ilaa hadda maskaxdayda ka daadegila, naagta intay soo fadhiisato idiin sheekayso dhowr saacadood nacnac waxaa waxay ka sheekeynaysa mataqaanid, waxaa u malaysaa schizophrenic inay tahay. From point to point to point u boodaysaa. Mar nin iyo naagtiisay haysataa, mar hooyo baa ciyaalkeed ka soo qaado waxaan geeyey gaalo u dhiibay, mar kuwa Soomaaliya masaakiino baadiyaan ka soo qaaday, dad iyagu nin maskiina ama naag maskiinahoo ilmaheeda kala carartay Yurub oo meelaha adduunka ugu xun ah, oo North America xitaa kasii wasaqsan, oo ilmahaaga lagugu kontaroolay daycareka hadday kaa soo daahaan. Oo Yurubka waxa waaye adduunka ilaahay Yurub meel ka xun ma jiro. Ilmahaaga waa lagugu kontaroolay daycareka hadday laba maalmood ka maqnaadaan guriga lagugu imaanaya. Annaga daycareka haddaa wacdoo tiraahdid cunugu xanuunsanayaa ama dhakhtaraan geeyey ama fasaxaan aada qof kula hadlaya ma laha. North America dadka jooga ama Maraykan ha noqoto ama Canada ha noqoto. Laakiin Yurub meel ka wasaqsan adduunka ilaahay ma jirto. Ilmahaaga waaba lagula kontaroola, waa lagu haynaa. Marka qof maskiin ah oo ilmihiisa Yurub kala tagay oo kala cararay ama baadiyaha geysto buul ha u dhisto ama maxay ahayd ha geysto maxaa la dhihi jiray Soomaaliya ha geysto ama Afrikada kale ha geysto, waxa adig ku daba dhigay oo uga daba ordaysid waa taas. Tan labaad waxa waaye teenager-ka u sheekaynaysa ay leedahay kasoo taga hadday habartu idin dhibto, ama intay u tagto oo guri tagtay waxay ku leedahay askari baan u dhiibay. Ilmaha waaba u digtoonaa u sameeyeyba, dhowr wiigo digtoonada u sameeyey. Waxay haddaa si isku dhaam weyso waxaan kuu dhiibayaa, halkay ilmihii iyo hooyadood la isku maslixi lahaa oo ilmihii iyo hooyadood la dhihi lahaa ilmahan sidaan dhaqanka ula dhaqmaysa hadaa ku adag tahay ama aabbaha noqdo ama hooyaha noqdo adayga sida uga dhaan oo ilmaha maaragta sida u dhaan oo ilmihii tafkiirkiisa inta la fadhiisto haddaad qof caqli leh ay tahay ama qof wax baratay ay tahay ama qof wax taqaana ay tahay oo ilmaha si loola dhaqmay ay taqaano, waxay dhihi lahayd inta ilmaha la fadhiisato hooy macaano maxaa adiga rabtaa, maxaa jeceshaa hooy inay kuu sameyso, maxaa jeceshaa aabbi inuu kuu sameeyo, oo ilmihii iyo hooyadii ay kala dhexgeli lahayd. Oo wixii dee waa xal, waa inaad qoyska u raadinaysid inaad qoyskaas badbaadisid oo wanaajisid, ma ahane 2 weeks aan ku siinaa 2 weekskaas kadib gaalaan kuu dhiibayaa oo af cad ay ku leedahay. Maxay ahayd marna ay keenayso ilmo la fuulay iyo ilmo la xoogay iyo sheekooyin alifaada iyo maray lacag idinka aruursanayso. Haddana ay u soo bandhigatay waa yeeladii markay lacag ka weyseen hadda teenager-ki iyo
naagal xoogay iyo naagal fuulay iyo waxa waa ilaahay subxaanahu watacaala ceebtaada hadduu asturay waay banaanka loo soo dhigaya gabar uur yeelatay oo hooyadeen ka baqaayaa tiri maxay ka soo wacan idinka hadda bal ilaahda ku dhaarshay qofku markuu waxaa layidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa maanaa waalan mise habartu waxay tiri yiraahdeen Soomaalidu kuma mahdaa maanaa waalan mise cadanaa laga heesayaa gabar uur yeelatay oo Yurub ku nool ama North America ku nool naag jaahilad ah oo weligood iskuul gelin oo luqad ay taqaan aysan jirin Swedishkaas haday u badato 4 xabo jugo ay ka tiraahdo 4 eray ku tiraahdo Sawaaxiliisan aqoon Ingiriisiisan aqoonin luqad kaleeysan aqoonin jaamacad baysan gelin iskuul baysan gelin oo qofku markuu mutacallim yahay luqadiisa iyo sidoo u dhaqmaayo iyo sidoo u hadlaayo u fiirsada qofku markuu mutacallim yahay wax soo bartay luqadiisa xitaa language-kiisa luqad kasto ku hadlaayo way ka fiican tahay qofku markuu soo mutacallim ahayn 4 xabo Sawaaxili ah ingoje kidogo amba waa dhihi karaa anoo yaraanteedii Sawaaxili ku hadli jiray iloobayba maxay ahayd iyo 4 xabo Soomaali qajaajqa Soomaaligu waa iloobay ku leedahay Soomaaliya kuma dhalan Soomaalina waa aqaanaa mana iloobin 18 aan jiray marka dalka imaaday ma fahanteen marka North America soo galay 19 jirka markaas ii buuxsamay 20 aan galay ilma aha naag la qaba aha markii le imaaday dalka Soomaalina ma iloobin hadda 5 jir ku soo gashid xitaa ama 6 jir kuma soo gnay habar waa yeel waay maxay diido naag weyn la keenay dalka oo ninba soo guursado dalka keenay waxa waay Soomaaliga waa iloobo Soomaaliga haddaan bartay ma fahanteen maxay ahayd marka Soomaaliga isku hadlayso xilli ku hadlay English ku hadlay qaja commentaar English loo soo qoraa ma akhrin karto wallahi is akhrin aqooni ما waxay la yaabin hadda English iyo Soomaali isku daro waana hadda waxay la yaabin hadda Soomaali English isku daro why dadka la noolay Soomaali kuma hadli jirin marka qofka jaahilka noocaas ah sheekada waxaan ku keenay waxa markaan ka sii hadlo waan sii xanaaqaleena waxaan ku keenay sheekada waxa dadka u hiilinaya oo intay comment ku soo qoraan ku dhahay arsaaqad ba ka raadinaysa Hana Abuukar arsaaqada ii gasho aan ka raadinay maxay tahay qof wax soo barta ahay qof shaqeysta ahay qof meel adduunka meel ka fiican ay jirin baa ku noolahay nimca ilaahay ii nimcay ilmaan haysta oo ii wada karo qaarkood xaasas leh baabur aan leeyahay anigu lacag aan leeyahay ka soo baxsaday aan ka soo iibsadaan haysta wata ilaahay wuxuu igu nimcay nin ma sha Allah oo ay qaba oo noo shaqeeya aniga shaqeysta ilaahay nimcadiisa meesha ugu macaan oo ugu fiican baan ku jira marka lacagta aan ka sameynaa naag jaahilad ah maxay tahay viewer baad ku raadsanaysaa dadka ka horeeya ka waayay ilaahay aniga marka waxaan la yaabanahay aniga commentiga arabtiin soo qora ima gilgilaayo wax igu sameynaa malaha wax qof wax iga qaadi kara malaha nacnacda waxa artiin wallahi xitaa commentiga inaan delete gareynin wixii awal Facebook hada YouTube-ka u soo wareegay YouTube-ka wallahi inaan delete gareyn wiil iyo gabar arkay dhowr qof oo u jawaabay iyada naagtaas jawaab siiyay wallahi inaan u jawaabin maba meesheeda kama qaadin laakiin waxa waa ma ayadii inta magac kale isku soo gashay meesha soo qoraysa mise groupkii la shaqeysanayo lacag laanta ku dhacday ba commentiga soo qoraaya waxaan la yaabanahay dadka ilaa hadda daawanaya oo naagtaas guuleysa iyo hore u soco iyo waa ku jecelnahay iyo I love you iyo ku dhahay qofa soo wacaya qofku haduu cilmi leeyahay ama sida idin leedahay ama sida idinku aad leedihiin waa social worker hadday cilmi leedahay oo qof wax soo baratay tahay ama dalkan ku kortoon Soomaaliga ku jajabsanayso Soomaali fiican aan ku hadlaynin waxay dhihi leed ma taqaani kama bilowdan sheekada hello you ka sii yahay 2021 aan ku jirnaa you ka sii yahay ma dhahneen ma maartay iskumaanan hadalneen
maxay ahayd haa hebla ninkii ninka saas sameeyey muxuu yahay qabiilkuu yahay inaa yihiis magaciisa ma haysa picturekiisa ma haysa 24/7 teleefankeeda meesha ku qoran daamines 24/7 waa tuugsanaysaa oo lacag bay ku qaadanaysaa dadku ku aruursanaysaa aniga teleefankeyga meesha ku qorata weligey ma aragteen dadka adduunka joogo youtube ayada ka horeeyo cilmiga soo jeedinaya ama wax idiin soo jeedinaya ama aqoonta idiin soo jeedinaya teleefonaadkooda meesha ku qoran ma aragteen because teleefankeyga waxaa uga baahan tahay iska yar qofkii aniga comment gaara igu soo qora ama facebook teleefankiisa kusoo qora waa wacaya oo dan iga leh walaa teleefankiisaan soo gelinayn walaa waan ka sheekeynayn walaa qabiilkiisaan rabi inaan ogaado qof walaalkay soomaali haddaan anigu caawin karo walaa video baan u baahnayn inaan ka duubto ya walaa arintiisa iyo waxa aniga qofkaas naga dhex dhacay qof yiraahda arintaas ay ugu dhacday dadka u wacyigeliyo u sheeg ma ahane qof anigu intaa soo qaadaan dhahay kaale teleefon ka duuba u sheekay dadka ma jirto leena waxaas akhlaaq ma aha tacliinna ma aha mutacallinimo ma aha wax social worker u dhiibtay ma laha hadda maalin dhaweyd waxay lahayd gabdhay waxay lahayd war ilaahay ilmihiina hala ilaalsado gabdhiina teenagerka ilaalsada at the same sentence u fiirsaya same sentence waa same sentence waxay ku leedahay aniga ciyaal ma qadiyanka taagan kuwayga baadi waxaan geeyay tareen saaro meel geeyay nin bay haysanin ciyaal bay haysanin keligeeda qol maanta oo dhan ku fadhisa hal qolay deganta oo shelter u eg oo dadka qaarkood ka hadlayaan oo leeyihin waa shelterku waa meelaha dadka masaakiinta guryo la-aanta ah hayso ay fadhiistaan taleefankaasay ku shaqaysataa marka dadka inta dhageysa waxaas lacagta ka aruursanaya oo ilmahoodi lagu caynayo oo cuduro iyo balaayo iyo maanta dhan dadka soomaalida ah waxba qofka hadduu usoo jeedinaya cilmi gelin iyo inuu qofkii u digo iyo inuu dadka u digo inuu dhalinyarada u digo iyo inuu dhalinyarada ka hadla iyo inuu wanaag ka hadla iyo inuu wax muujiyo wanaag ah haa waa garanay inuu yiraahdo dhibaatadaas jirtay dhibaatadaas sidaas iyo sidaas aan iskaga dayno oo sidaas aan samayno waa wax la gartay ileen dadka walaalaha wacyi gelin u sameynaysaa laakiin markaa dhibkooda ka sheekeynaysid gabar yaraa ii timid oo maxay ahayd uur leh oo waalidkeed ka baqaysa inay la hadasho ceeb qariska gabadhi magaceeda iyo adduunkii iyo waxaa la raadinaya fidno intaas waxaa la raadinaya gabadhi magaceeda iyo nin baa naag xoogay hadda maanta masashal waxay ka hadlaysay gabar mid baa soo wacday sheeko waxay ku leedahay mid baa AIDS ku dhaco saas teleefankeeda meesha ku qoran marka lacag baa loo aruurinaya gabar nin uu ku riday AIDS waxa waaye markaas sadaqa aruurinaysid you don't need teleefankaaga inaa meesha soo dhigtid you don't need qabiil you don't need maxaa la dhihi jiray detail badan sadaqada lilaahi oo aruuri war gabadhaasaa jirta dhibaataa jirta sheeko noocaasaa maqlay you don't have to inaad adduunkan isugu soo wacdid oo gabadhi wacdid oo hooyadeed wacdid oo tii cudur ku dhacay wacdid oo tii dariska wacdid oo dadka dhan waa sheekooyin la isku alifo oo isku xirxiran sheekadaasaa jirta gabadhaas dhibaataysanaa jirta teleefankeedana waa kaas gabadhaas dhibaataysan teleefankeeda waa kaas halkaas kusoo qoray walaalayaal gabadhaas wacoo dhibaatada ilaahay wuxuu idinka siiya waa ajar baad ka helaysiine gabadhaasa la caawiyo waa very sheeko kooban ma baahna in toban beri sheeko laga dhigo marka waxa waaye dadka naagta jaahilada ah ilaa ay ka harto inay dadka wax ka aruursato oo teleefankeed meesha soo dhigto oo dadka masaakiinta ah sadaqada loo aruurinayo ee iyadu jeebka ku shubato teleefoonaadkeeda hadhowna xerato la waayo hadhowto kuwii la dhacay shalayto oo teleefoonaadkeeda magaca lagu aruursado fiidiyaasha laga duubay baa hadda soo ooyaya oo realityga proof laydiin hayaa kulligood markaasaa u doodaysiin ee leedihiin soomaalida dumarkoodii wax u qabataa maxay u qabataa ee ogtahay u qaban kartaa haddaartiin wax laydiin qabto kanada joogtiin soo waca anaa idintusa sharciga dalka idiin sheegaye dhibaata hadday idin haysato ninka hadduu ku dilaayo dhibaata hadday ku haysato kaale anaa shelter ku geenaya gurigaaga inta kugu imaada shelter ku geenaya I don't need inaan public u sheego
I don't need inaan video kaa duubo. I don't need inaan adduunkan un kuusoo sheego qabiilkaaga yuu yahay, yaa ka dhalatay, inay hebel hebel yaa ka tahay, magacaaga, ganjeelle hebel maa deganta, gurigaaga adduunka u sheegaysaa wax alaal waxay tahay. uma baahni waxaasoo dhan. marka ilaa naagtaas ay suuq ka fariisato ma joojinayno annaga waxaan wadno. keligeen ma ahna dad badan waana isla wada shaqaynaynaa insha allah in laga fariisiyo naagtaas ama la xiro jeel ay ku dambeyso. khayra isku ognahay. naagtaas waxbaa ka dhegaysanin ilaahay inta ka baqdiin. salaamu calaykum.